بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين آمن لك وفشيال ولا ليوان السلام السلام كدب ولي انت الدنيا تشوكتين ما عرفتين المعلول كجرو لحظة ilmo bannaan mara oo soconaya la xadaa laakiin ilmo calool hooyo ku jira oo la xada weligiin ma aragteen maraykan bay ka dhacdeen ilmaha yaraan arkaysaan hooyadiis dhowr 20 jir bay ahayd uur bay lahayd waa gabar yar naag deriska la ah baa intay u yeeratay guriga ugu yeeratay oo casuuntay isku building bay deganayeen isku sar bay deganayeen intay guriga ugu yeeratay way hooyadii nool qalatay oo ilmihii kala soo baxday maana calooshay ka qashay ilmihii bay kala baxday kadibna hooyadii halkii bay ku dhimatay laakiin intay noolayd bay ilmaha la baxday hooyadii markay dhimatay waxay ku tuurtay meel cidla ah ayay geysay hooyadii muddo la raadinayay muddo kadib adilaa asbuuc gudaheeda baa waxa laga helay meydkeedii meel laakiin 3 cisho intaan hooyada la helin ayaa waxa lagu helay 3 cisho 3 maalmood gudahooda baa isla sartii la baaray oo ilmihii yaray laga helay naagta markaa ilmaha qalatay oo ilmaha macnaha kala baxday hooyada reerka deris bay lahayd uur laguma ogeyn laakiin hooyadan markaa la weysan yahay uur baa lagu ogaa saasa ilmihii lagu ogaaday inuu ilmahani ay dhashay gabadha 3 bari ka bacdi marka 3 bari gabadhii ilmihii yaraa la helay ba hooyadii waxa la helay isbuuc 7 cisho gudahood meydkeedii ilaahay amarkii hooyadii ilmihii yaraa markii la soo qaaday waalidkii gabadha dhimatay macnaha ayeeyadeed baa ilmaha ayeeyadood baa kurisay iyo aabihii dhalay oo markaa nool oo jooga ilmihii yaraa markaa qadar Allah sawirka hooyadii marka la agdhigo way taabanaysaa way ku farxaysaa way fahmaysaa dareen waxay u qaaday baa la yiri hooyanimo bay ilmaha yar u qaaday marka mucjisadan ilmihii oo caloosha ku jira la xadayo ilmo banaanka ku jira maxaad u malaynaysan ilmo banaanka maraya subhanallah bal arrintan la daawada idinku. This adorable baby girl came into the world in the most horrific way. She was ripped out of her mother's womb. 22-year-old Savannah Graywind was pregnant and thrilled at becoming a mom for the first time. But the most joyous time of her life came to an end by a barbaric act committed by this woman. Waata naagtii ilmaha kala baxday hooyada. This is who she is as we sit here today, a cold-blooded killer. Savannah lived here sartaasi ku wada noolaay in a basement apartment she shared with her parents. I was excited to be around her. waa ayeeyadii way tanna waa tii dishay naagta wataa gabadha la dilay Savannah left her basement apartment here, made her way wataa guriga saasay u kortay kor bay aaday She clearly expected to be right back because she left her wataa markii aadaysay ka sheekaynayaa sidii ku aaday kor but she made her way up to apartment number 5 and that was the last time she was kor bay aadeen oo markii ugu dambeysay la arko waa ayeeyadii iyo awowgii gabadha la dilay ilaa 22 jir bay ahayd Savannah's disappearance touched off an all-out search. Then, 3 days later, cops raided Cruz's apartment and to their shock, 3 bari baa guriga laga baaray ilmaha yar baa la helay when you saw this beautiful baby and your daughter was still missing. hooyadii abii baa la wareysanayaa Keep searching. marka ilmaha quruxda badan aragteen maxaad samayseen be oo gabadhiin ay maqan tahay We wanted her. waan baarnay baaritaan baa weli galnay bay tiri ilama aaminsan inay dhibatay halkaas laga helay They found Savannah's body in the water, lodged against a tree, wrapped in plastic and bound with duct tape. Very horrific. iyadoo afkana xabaag looga dhijiyay bacna lagu xirxiray bay meydkeedii ka heleen meesha Cruz and her boyfriend William Hone were charged with conspiracy Subhanallah. to commit murder. Cruz pled guilty, and at her sentencing last week, the DA revealed she performed a crude C-section on the gabadhan waa gabadha markaa uurka lahayd waa hooyadii ilmaha laga qaatay oo nolosha lagala baxay caloosheeda
labadii kale aad arkaysiina waa ninkii iyo naagtii oo labaduba saaxiib yihiin oo ilmaha dhacay way xiran yihiin laakiin hooyadaas say ku tagtay ilmaha yar ee sidaa foosha xun adduunka ku yimidna nasiib wuxuu u yeeshay waalid iyo ayeeyo iyo awoowo iyo aabbo koriya laakiin gabadhan noloshaa lagu ciriiriyey iyadoo nool baa la qasha sidaasayna ku socotay qisadaas maraykan bay ka dhacday waa qiso cajiiba noloshayda isma lahayn waxaad arki doontaa ilmo dhanoo caloo lagala soo baxayo adduunka bini'aadmiga waxaasaa ka dhacaya walciyaadu billaah subxaan allah ilaahuna badbaadi awlaad nool soconaysana maxaad u malaynaysaa khatartaasaa lagu jiraa ha lays badbaadiyo ha lays ilaaliyo